koonfurta Soomaaliya gaar ahaan deegaanada xiga xuduudda dalka Kenya waxaa ka jira ciriiri isgaarsiineed kadib markii ciidanka Kenya ay burburiyeen xarumihii isgaarsiinta ee deegaanadaas ku yeelay. Cabashada dadka deegaanka ayaa ku sheegeen inay tahay mid ay baahi ka qabaan dhinaca isgaarsiinta iyaga oo sheegay in aysan dadku awoodin inay isla xiriiraan. Cabdullaahi Nuur Xasan gudoomiyaha degmada Baardheere ayaa sheegay shirkadda Hormuud inay dadka deegaanka u sheegtay haddii ay dhisto xarumihii ay dumiyeen ciidanka Kenya inay ka cabsanayso in mar kale dib loo baabi'iyo. Bay ku qabaan dadkii aagga asaga ku noolaa oo reer miyiga ahaa iyo tuulooyinkiiba ay u soo dirsan jireen magaalooyinka adeegyada ugu soo dirsan jireen taleefannii wixii oo dhan isgaarsiintii oo dhan baa go'day. Isgaarsiintaas marka waxay ahayd 80% nolosha bini'aadanka hadda waxay ku xiran yihiin isgaarsiin. Teknolojiyadaas ee gasha casriga ah marka waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka Soomaaliya in gobolada xoreynteeda ay ka qayb qaadato ay xoojiso si loo ilaaliyo amniga xuduudaha iyo deegaanada xuduudaha ku teedsan oo dhibaatooyinkaas Hormuud loogu geystay ayagana amnigooda loo sugi lahaana dawladda federaalka madaxweynaha ugu sareeyo ra'iisul wasaaraha wasaaradda amniga iyo gaashaandhigaba waa ugu baaqaynaa ayagana in ay dardar galiyaan sida gobolka gobol xor ah oo dadkiisa dhibaatooyinka ay cadawga ku hayaan noocu rabab ha ahaadee ay uga difaaci lahaa. Nabadoon Maxamed Xaashi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Gedo ayaa sheegay ciidanka Kenya inay dhibaatooyin ku hayaan gobolka isagoo shirkadda Hormuud ka dalbaday inay dib u dhisto xarumihii ay horey u dumiyeen ciidanka Kenya oo nagu wada dhacay oo iyaga ku dhacay oo annaga nagu dhacay gaar ahaan annaga aad noo taabtay dadkii dhibanaha ahaa oo wax ku qabsan jiray shirkadahaas oo ay ugu deeqi jireen oo loogu adeegi jiray oo naftooda ahaa miyiga qofka degan galaaska caanaha soo qaato AFC bay ku jirtaa kolkii galaaska la keenay hadii AFC la waayo galaaska meel la aadahay male sonkor cidii loola noqon haya male tala kale la qaban haya male wax kale oo la dhaqaajinaya ma jiro dad badan baa hadda saas nooga abiyuusan 12 shirkadood anteeno waxay dumisay baashaas 8 baan ku lahayn annaga gobolka Gedo 8 hadda waa qaawan yihiin waa sidii dadkoodii dhibku qaba sidii weeye meel laga qaxay iyo meel iska ag joogo anteerada qaar baa waxay u doontaan 40 kilomitir sida hadda la soo tabin hayay dhibkaas dadka qaba oo dhiban oo shirkadda Hormuud ay horey wax ugu qabatay oo hantidii gelisay yaan dib waxaan u codsanaynaa in loo yagleelo hawsha ayadahay dib loogu dhiso dhibaatadii badnayd iyo qarashkii badnaa idinka galay dib aad noogu gelisaan ma haddi iyo ilaahayga aan kugu bariyi jirnay aan dib idinka codsanaynaa in hawshaas dibna loogu dhiso. Nabadoon Tawane Axmed Cabdi ayaa cadeeyay baahida ay u qabaan dadka deegaanku in ay helaan isgaarsiin isaga oo sheegay in baahidoodii ay meesha ka baxday kadib markii ciidanka Kenya ay baabi'iyeen xarumihii isgaarsiinta. Dawladda Soomaaliya ayuu ka dalbaday in arintaas ay wax ka qabato. Wax tallaabo ah oo hadda muuqato xitaa maqal fiican baa Allah ka dhigay oo dadka la gaarsiiyay iyo shirkadii wali ma aanan arag ma aqaana hadii wax magdhow qasaara inay dawladooda hoos ula wadaageen garan maayo laakiin wax muuqda ma aanan arag waxay la tahay hadii magdhow uu jirana ayaga mar hore kaalinkoodii ka soo bixi lahaa waxaan dawladda federaalka ku boorinaynaa oo ka codsanaynaa oo waliba aan ku taakidinay dalka iyada dawladdu u ahayd dhibaatada ciidamada Kenya oo aan ka mid ahayn waliba AMISOM oo tumaya dadka shacabka iyo xoolahoodii iyo geeloodii iyo arigoodii iyo naftoodii. Waxgaradka oo maanta isugu yimid kulan ay ku qabteen Muqdisho waxa ay u mahad celiyeen shirkadda Hormuud oo ay sheegeen inay ka qayb qaadatay arrimaha gargaar u fidinta kadib markii gobolka ay ka dhaceen fatahaado ay sameeyeen wabiyada iyo sidoo kale daadad soo rugmaday.